haddii aad isku aragtay in lugahaaga midabkooda isbedelay wixii jilbaha ka hooseeyo, xaaduna ka haaday, cidiyuhuna qolfoof noqdeen, maqaarkan adkaaday ama khafiif noqday oo si sahlan u dhaawacmayo ama yeelanayo nabro aan reysanayn si walba qalaji u qaadatid ama loo dhayo, waxaad ogaataa inay ciladan ku haysato casharkan adigoo kugu socdo. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. ciladan waxay timaadaa markii xididada dhiigga geeya cagaha ay xirmaan ama ciriiri noqdaan. ciladaas oo afka qalaad lagu dhaho peripheral vascular disease ama peripheral artery disease. waa cilad bulshada ku badan, waliba ragga da'doodu ka weyn tahay 50 sano iyo haweenka xilliga dhalmadeyska ku jira. sidoo kale dadka qaba ama qoysaskoodu dhaxalka u leeyihiin xanuunada dhiig karka, macaanka, kolestaroolka ama wadna xanuunka. sidoo kale waxaa lagu arkaa dadka aadka u caylan ama sigaar cabista joogteeyo. ciladan waxaa lagu ogaadaa weysiteen iyo baaris muuqaaleed oo lagu eegayo qulqulka dhiigga xididada iyo meelaha ay ka xiran yihiin. in xubintu hesho dhiig ku filan waxay muhiim u tahay reysashada nabraha iyo dhaawacyada gaara. nasiib xumo, waxaan badanaa la kulmaa dad ciladan qabo oo qalajiyo ku nool ah oo si joogto ah looga dhayo nabraha lugaha ku samaysmay. taasina xal ma ahan, sababtoo ah nabrahaasi reysan maayaan haddii lugtu aysan helin dhiig ku filan. ciladan markii ay cusub tahay, xididada ciriiriyoobay waxaa lagu furaa daawooyin, laakiin markii ay raagto wuxuu qofku u baahan doonaa qalliin xididada lagu furo ama in xubintii loo tallaalo xidid kale si loo badbaadiyo. sidoo kale dadka la nool ciladan waxay 3 jibaar halis ugu jiraan xanuunka stroke ama faaliga markii dadka kale loo eego. raggana waxaa la soo darsa hamiyari iyo kacsi la'aan oo astaan u ah ciladan. haddii aad isku aragtid in midabka lugahaagu madow noqdeen, xaaduna ka guurtay, maqaarkuna qalleel noqday oo sidii bacdi oo kale dhaldhalaal yeeshay, fadlan dhakhtar la xiriir oo ka hortag inta nabar uusan kugu samaysmin. fadlan faafi fariintan oo la wadaag bulshada, waana mahadsantahay.